السلام عليكم سو دواada magacayga waa Sabax ku soo dhawow Soma Design anigoo maalin dhaweyd TikTok ayga la qaybsanay sidaan anigu isticmaalay ChatGPT ayaa su'aalo badan laga soo weydiiyay marka waxaan rabaa videogan inaan saddex wax idinka jawaabo ama saddex wax ka hadlo waxaan ka hadli doonaa guud ahaan waa maxay ChatGPT laba siyaabaha kala duwan ee adigu u isticmaali kartid saddexna in yaro maaragtay taxadara ama digniin sidaas inaad iska ilaalisid inaad u malayn qofkan ama waxaan inuu yahay qof bini'aadan aad la sheekaysanaysid so saddexdaa wax baan ka hadlayaa so please stay tuned inta aanan u gudagelin laakiin waxaan rabaa inaan in yar idinka hadlo channelkaygan cusub maadaama yahay channel cusub inaan isku sheego anigoo kasaan sheegay Sabax baa la yiraahdaa waxaan ahay graphic designer waa qof sameeya logos brands waxaan sameeyaa web design channelkan insha Allah featureka waxaan ka hadli doonaa wax kasta ku saabsan design iyo branding iyo business iyo marketing iyo side hustle marka waxa hadda xiiseynaysid insha Allah wax kale badan haddaba taabo subscribe-ka haddaba taabo haba sugin hadhoodi loobisa marka aad u mahadsan iminkaan sii socono waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah guud ahaan waa maxay ChatGPT guud ahaan waxa weeyaan waxa la yiraahdo large language model waa wax chatbot oo la soo tababaray waxaana lagu tababaray wax kastoo qoraal ku jiray internetka sheekooyinkii dadku sheekaysan jireen wixii dadku isku qori jireen memeskii la isku diri jiray the early 2000kii malaha wax yar ka hor some of the 90s as well wax kastoo internetka ku jira basically ayaa lagu tababaray taa kaliya dee ma aha waxa kale lagu tababaray waa aqoontii oo dhan waa xisaabtii waa physics waa chemistry waa history waa aqoon walba oo xitaa dee internetka laga helay marka waxaasoo dhan baa lagu tababaray so waa large language model markastana waxaad maqashaa ChatGPT-gan aad maqashid waxa weeyaan generative and pre-trained transformer so generative wax generate garanaya pre-trained hore loo soo train gareeyay transformer turjumaadaydi ba English ma ku sheegay hadana laakiin I hope aad fahantay ChatGPT marka waxa iskale company la yiraahdo OpenAI Open Artificial Intelligence so intelligence la sameeyay artificial intelligence ChatGPT iyo kuwa qaar badan oo kale la mida waxa loo yaqaanaa AI so waa artificial intelligence la sameeyay ninka ChatGPT maamula Sam Altman baa la yiraahdaa isaga ilaa hadda ka ah CEO ChatGPT wuxuu kala baxaa imikadaas 3.5 iyo 4 so as soon as you make an account and log in you have access to the 3.5 so isla markaaba 3.5 waa isticmaali kartaa waa bilaa lacag runtii long time no isticmaali dhowr bilood baa isticmaali not long time but dhowrkaa bilood aad bay caawiyay uma runtii arkin caqabado badan inuu maaragtay inaan u baahnaa wax kale the only reason aan hadda u bedeshay for ChatGPT 4ka waxa weeyaan iminka wuxuu samayn karaa sawiro xitaa ay ku samayn karaa video buu ku samayn karaa so taas haddaad rabtid inaad ku darsatid 4kaad upgrade ku samaynaysaa lacag baa laga bixiyaa imikadaa waa $20 waa iska qaali runtii bil walba waa $20 haddaad hal bil u baahatid furo markaas ka xir hadda xitaa saas aad jeclaan lahayd laakiin waxay u kala baxaan ChatGPT 3.5 iyo ChatGPT 4 imikadaa 4kuna waa lacag waxa u qorshaysan kulli latest news aan ka soo akhriyay ChatGPT imika inay sameeyaan computer marka waxaan isleeyahay computerka waxay dhexgelin doonaan ChatGPT marka wuxuu noqon doonaa wax kulli kuu jooga ayaan u malaynayaa marka imika basii baro ninka xitaa markii la weydiiyey waayd u sii dayseen ama ugu furteen publica ChatGPT so early wuxuu yidhi waxaan rabaa dadku markuu aqoontiisu yar tahay inay la qabsadaan ay la koraan ay si walba u isticmaalaan soo hadhow markuu noqdo wax quwada weyn inay si fiican u garanayaan inta rather lasoo saari lahaa isagoo dee wax kasta garanaya markii lasoo saaray runtii saas wax muu aqoonin that's why loo haystaaba GPT 3.4 sorry GPT 3.5 now GPT 4 waxaana soo socda imika GPT 5 that means uu kasii fiican yahay 4ka and so on waa sida iPhone maanta oo dhan number ay ku darayaan so that means way kala fiican yihiin bad waan arki doonaa insha Allah imikana haddii si guda galo sidee baad u isticmaali kartaa ChatGPT aad iyo aad bay kala duwan tahay runtii saad isticmaali kartid haddaan ka bilowna ta ugu horeysa one of the ways aad isticmaali kartid waa qoraal haddaad email qoraysid haddaad blog post qoraysid haddaad homework qoraysid wax kastoo qoraala lagu soo diro ama aad iska sameynaysid adigu uu ka caawin karaa even wuxuu ku samayn karaa haddaad adigu qoraal samaysa waad gelinaysaa aad tirahdid iga sax wuu ku saxayaa ama aad tirahdid ii gaabi ama aad tirahdid qoraalkaas ii dheere wuu ku samaynaya ku dheereynaya wuxuu kale ka caawinayaa waxa weeyaan
wuxuu kaloo ka caawinaya waxa weeyaan haddaad doonaysa sheekooyin, stories, poetry kuu sheego. Xagga waxbarashadana aad baad uga isticmaali kartaa. Even waxaa la yidhi some of the test classyada hoose uu garanaya toos uu kugu sheegi karaa. taas ciyaalkaaga u sheegin laakiin uu garanaya iyagu way naga yaqaanaan. Haddana wuxuu kaloo ilmaha ka caawin karaa ama adigaba ka caawin karaa tutor. Berigii hore ilmaha waxaa loo qaban jiray macallin xisaab iyo macallin physics iyo macallin chemistry maybe. Bad imika waxaad u baahan tahay uun ChatGPT runtii inkastoo laga yaaba macallin xitaa loo baahan tahay laakiin si fiican buu taana ciyaalka uga caawin karaa. Sidoo kale coding dadka sameeya programmingka codingku ka caawin karaa. code buu kuu qori karaa. Even codekii hadduu qoray aad aragtid waxbaa ka khaldan ama rabtida bedeshada waxaad dhahaysaa intaa yar ka bedel adoo xitaa conversationkii hore kusoo celininba codekii waxaad dhahaysaa qaybtaa ka bedel sidaan u bedel saan u sameey. So taasna si fiican buu garanayaa. Even wuxuu kuu sixi karaa like qoraalo dhaadheer PDF dhaadheer haddaad haysid uu kuusoo gaabin karaa ama qaar baa jira xitaa kuu akhrin karaa laakiin you have to have a plug in wax la dhahdaa. Waxa kale uu ka caawin kara waxa weeyaan daily planning noloshaada daily lifekaaga haddaad u sheegtid waxaa laga rabaa arbacada waxaa laga rabaa aad inuu kuu sameeyo plan uu kuu sameyn karaa. Even wuxuu kuu sameyn karaa meal plan cuntada gurigaaga exercise plan kuu sameyn karaa. waxyaalahaas oo dhan uu ka caawin karaa. waxaan anigu maalin tijaabiyana ku dhaho guriga cunto noocaas ay taala maxaan ka sameyn karaa runtii tan uu sheegay. Iyo si kale loo isticmaali karin waxa weeyaan entertainment haddii ciyaar kula joogaan ciyaaraha la ciyaari kartid story haddaad rabtid inuu kuu sameeyo storyga loo isticmaali karaa weeyaan waxaad u isticmaali kartaa sidii turjumaan oo kale qoraal baad u sheegaysaa qoraalka ay turjum even soo ahaan dambaystana waxaad ku isticmaali kartaaba isagaad weydiin kartaa si u shaqeeya ChatGPT maxaa tahay maxaad ka samaysantay yaa ku sameeyey marka waxaan ku dhihi lahaa aba gebigiisaba su-aal xitaa. So imika taas haddaynu ka gudubno dad baa isoo weydiiyey xitaa sidee baan u furan karaa runtii aad bay u fududahay. waxa weeyaan 2 ilaa 3 tilaabo sida loo furto. waxaad gelaysaa website-ka ku qoran website-kooda oo la yiraahdo openai.com ama waxaad gelaysaa Google baad ku qoraysaa OpenAI hadhowna waxaad taabanaysaa linka markaad geshid waxaa ku qoran continue to ChatGPT halkaas taabanaysaa. marka taabatid wuxuu ku weydiinayaa inaad samaysatid account dan emailkaaga iyo password baad samaysanaysaa bes waad gashayba. So taasna waa sida loo furto. ugu dambaystii inta yareed taxadarkaan raba inay idiin sheego ama digniinta waxa weeyaan ha u isticmaalin ChatGPT si khaldan su'aalo xunxun ha weydiinin sida maaragtay sida wax loo qarxiyaa sida qalad loo sameeyaa sida waxaa loo dilaa sida waxaa ha weydiinin waayo dad baa akhrinaya dad baa og waxaad samaysaa marka ogow qoraalkaagu meel buu tegayaa dad baa la socda. teeda labaad marka ciyaalkaaga isticmaalayaan la soco su'aaladay weydiinayaan because dadka sameeya waad ogtahay dad muslima ma aha ama dad xitaa la jira diintaada ma dhaqankaaga ma aha sida haddaad weydiisad imika nin naag ma noqon karaa naag nin may noqon kartaa haabuu ku odhanayaa. So waxyaalahaas kasii taxadir ciyaalkaaga markay maaragtay isticmaalayaan. iyo guud ahaanba da iska taxadar bahalkan waa mashiin bini aadan maaha. soo akhriso u shaqeeyo sad isaga ilaalin kartid. waxan waa tool weeyaan sida tool u isticmaal dantaada ka gaari karo sida isticmaalisid business ahaan assistant ahaan waxyaalaha caawitaanka fudud homework daily planning waxa aan sheego dhan isticmaalisid iyo qaar badan oo kale waa iska okay laakiin politics iyo religion runtii aan waxaan ku dhihi lahaa haba la gelinba dad baan arkay la murmo oo la sheekaysta waad xiiqaysaa un marka wata digniintii I hope videogan inaan ka faa'iiday marka waxaan idinka codsanaya haddaad faa'iidayna please waxaad taabataa midkaas fartaas taabta insha Allah aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum until next video.